wasiirka cusub ee wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaro ee koonfur galbeed Soomaaliya iyo geekasi rasmi ah in la wareegay xilshay maybana xil wareejintii ku dhiiday xarunta madaxtooyada koonfur galbeed Soomaaliya maybana goobjoog u ahayay wasiirkii hore ee wasaaradda wasiire xildhibaana guddiga xil wareejinta koonfur galbeed Soomaaliya dhalinyaro ee xubno kala wasiirkii hore ee wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaro Cabdullaahi Fanax iyo ugu horeyn ku hadalay goobta maybana ku sheekayay walqabadka muddadii uu sahay xilka wasaaradda uu soo wasiirka cusub oo ku wareejay dhammaan shaqaalooga iyo dukumeentiyada la haytay wasaaradda iskala mid ahaayeen ay nagala shaqeynayeen CBO ama ururo oo community-ga ah oo degmada ka yimid oo gudoomiyaha degmadana oo ka ahaa stakeholders-ka ugu weyn oo runtii suuragelinta mashruucaasna gacan badan ka geystay waxaan kala rabnaa hay'adaha UN Habitat, UNFPA, maxaa la yiraahdaa UNDP, UNIDO, ICOM oo mashruuca TIS Plus nagala shaqeysay oo USAID fan ahaa ayaguna aadan u mahad celinaynaa iyo kuwa kale aan ka tagnay oo hadda aan runtii aanan kor ka xasuusan karin oo runtii 4 sano aad noola shaqeeyay waxaan kala rabaa hay'adaha localka ah ee sida dhow noola shaqeeyay oo mararka qaar ayagoo aan fan haynin howlaha qaar ee wasaaradda ah oo jadwalka wasaaradda ku jira jeefkooda ka waday oo sida wardi Somali Peace Line iyo maxaa la yiraahdaa MMC iyo kuwa kale oo runtii aad noola shaqeeyay oo runtii intaan shaqeynaynay na garab taagnaa ayagana waa u mahad celinaynaa waxaan kala rabaa inaan u mahad celiyo gudoomiyaha degmada Baydhabo ahna duqa magaalada Baydhabo gudoomiyaha gobolka Baay iyo wasiiro badan oo runtii wasaaradihii hore ka soo shaqeeyay oo runtii aad noo garab istaagnaa gaar ahaan gudoomiyaha gobolka iyo gudoomiyaha degmada mashaariicda ugu badan aan Baydhabo ka hirgelinay sababaha ay u hirgeleen ayaa ayaga lahaayeen sababtoo ah flexibility-gooda soo dhaweyntooda iyo suuragelintooda meelaha aan wax ka dhisayno ama wax ka qabanayno oo aad noogala shaqeynayeen ayaa suuragelisay mashaariicdaas waa u mahad celinaynaa runtii aniguna ka shakhsi ahaan iyo tiimka wasaaradda iyo qof walba oo mashaariicdaasi qayb ka ahaa uu dareensan yahay kaalintay ku lahaayeen howlihii inoo qabsoomay aadan ugu dheeraaday aad iyo aad idinku mahad celinaynaa waxaa jira mashaariic hadda socda oo wasiir ku-xigeenka wasaaradda ahaana wasiir dowlihii wasaaradda uu soo loonjigaray ama soo daahfuray oo ka socda oo ceelbarde xudur iyo diinsoor 3 degmo mashaariic oo dhalinyaro oo livelihood socdo wasiirka cusub ee wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaro ee koonfur galbeed Soomaaliya Cali Dhuux Maxamed oo siina goobta ku hadalaya muujay in uu safayl usan la shaqeey doono shaqaalo wasaaradda isla markaasina su'aal ku bedeli doona heerka geekiga roogta aan ku kala wareegnay xilkii wasaaradda waxaan marka hore halkan ka salaamayaa golaha wasiirada dawlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya intii ka joogta dhamaantood wasiirka qorsheynta wasiirka batroolka iyo wasiirada kale ee fadhiyaan waxaan kaloo salaamayaa guddigii loo soo xil saaray xil wareejinta baarlamaanka ka socday dhammaan wasaaradda dhalinyarada isboortiga shaqaalaha ka tirsan qaybooda kala duwan ama ka yimaadaan gobolka Bakool gobolka Shabeellaha Hoose ama ka tirsanaadaan gobolka Baay dhammaan guud ahaan hay'adihii la soo shaqeeyay wasiirka aadan u salaamayaa dhammaantiin soo dhawaada waxaan maanta aad rabaa meesha inaan uga mahad celiyo wasiirka madaxweynaha dawlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya oo ii xil saartay in aan xilkan aniga qabto meeshii uu soo gaarsiiyay wasiirkii horeetana aan kaga sii anba qaado waxaad ogtihiin maamul goboleedka in laga bilaabay meel aad u adag hadeertaan uu maray meel aad u fiican intaas waxay ku timid juhdi dadka deegaanka degan oo dhan ay wada bixiyeen annagana waxaan ballan qaadi doonaa meeshii uu wasiirka soo gaarsiiyay inaan ka sii wadno oo aan gaarsiino meeshaas email ka sareyso sidana loo igmaday waxaan kaloo ballan qaadaynaa haddii aan gaarsiin weyno oo awood ahaan ay noo diido sidiina loo xil saartay waxaan ku noqon doonaa madaxweynaha waxaan u celin doonaa xilkii naloo dhiibtay waxaa commitment nagu ah in aan shaqadaasi ku qaban doono si hufnaan ah wasiirka aad u mahadsan yahay saaxiibkaygu ahaa waxaan anigu ahay dadka isboortiga jecel
oo weligiis ku dhex jiray qaybaha kala duwan ee isboortiga waxaan soo ciyaaray kubadda dadka waxay aad uga leexdaan ayaan aniga ahaan jiray waxaan ahaan jiray aniga buurteeri yaraanteydii ilaa iyo heer junior qaranka aan buurteeri soo qabto waxaan ka aqaanaa sports wax aad u tiro badan wasiirka markii uu bilaabayay inuu ka shaqeeyo heerka xul qaran waxaan la tagayay xamar waxaan tagayay isbartiibada waxaan dhiirigelinayay dhalinyarada waxaan aad u jeclahay inaan dhalinyarada dhiirigeliyo waxaan aad u jeclahay sportska inaan kor u qaado madaxweynahana markuu i weydiiyey wasaaradda anaa codsaday anaa waxaan dhahay madaxweyne wasaaraddaasaan waxaan u leeyahay patient wasaaraddaas idhib waxaan intii tabartayda ah oo xooggayga ah ballan qaadi doonaa wasaaradda meesha ay hadda taagan tahay inaan hore uga sii qaado aniga oo la kaashanayo dhammaantiin waxaan idinka codsanayaa intii wasiirka la soo shaqaysay oo wasiirka uu halkan ka ammaanay dhammaantiin si wada jir ah waxaan idinka codsanayaa inaad nagala shaqaysiin dhismaha wasaaradda waddankan waa ogtiin waddan burburay dhib badan ka dhacay wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaro maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa ku fadhiyay niyo kaalan wanaagsan ee ku qaadata iska hirowka dhalinyarada Soomaaliyeed ee ka nool gobolada ku aramiya maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Maxamed Nuur Maxamed Cabdullaahi telefishinka caalamiga ee koonfur galbeed Soomaaliya Baydhabo.